waxaan codsanayaa codkiina waxaan weydiisanayaa ka codsanayaa inaad codkiina isiisaan waxaan si xushmad leh idin weydiisanayaa codkiina si aan u rumayno himilada dadkeena waxaan si xushmad iyo qadarin leh ugu dheehanta idinka codsanayaa inay siisaan codkiina iguna aamintaan masiirka dadka iyo dalka Soomaaliyeed aadna doorataan oo fursad noo siisaan xildhibaanada labadiina aqal dadka Soomaaliyeed kala irdoobayna waxaan ku soo gabagabaynaa codsanayaa in aad igu aamintaan ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta galay maalintii ugu dambeysay ka hor doorashada oo dhacaysa bari oo Axad ah waxa xoogaystay dadaalka ay wadaan musharaxiinta ee ay ku raadinayaan codadka xildhibaanada ayada oo xildhibaanadu ay isla marayaan musharaxiinta ugu xoogan oo marba ay tagayaan xarunta ololaha musharaxa gaarka ah arinta la yaab kale ayaa ah in ilaa hadda uusan jirin musharax bixiyay lacag sidii hore caadada u ahayd balse waxay u badan tahay in hadiiba la bixinayo inay caawa noqon doonto sida ay ilaa hadda wax u socdaan waxa loolanka ugu horeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo saacadihii ugu dambeeyay ay u jabeen xildhibaano ka soo kala jeeda Soomaaliland Koonfur Galbeed halka uu hore u haystay inta badan xildhibaanada Hirshabeelle iyo Galmudug kasoo Xasan Sheekh musharaxiinta kale ee la filayo in wareega koowaad ay ka soo gudbaan ayaa ah Farmaajo Shariif Sheekh Axmed iyo Siciid Dani waxaana sii dhamaanaysa rajada Xasan Cali Kheyre oo xildhibaano badan ay u arkaan in hoggaanka dalka aan lagu aamini karin marka la eego diiwaankiisii ra'iisul wasaarenimo xogta aan helnay ayaa sheegaysa inay u badan tahay in wareega ugu dambeeya doorashada ay iswajihi karaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ama Xasan Sheekh iyo Farmaajo haddii aanay wax isbedelin saacadaha ugu dambeeya inkastoo Siciid Dani rumaysan yahay inuu ka soo gudbi doono wareega koowaad haddana xogta aan helnay ayaa sheegaysa inuusan rajo ka qabin xilka madaxweynaha isla markaana ujeedkiisa ugu weyn inuu yahay inuu codkiisii wareega koowaad ku gorgortamo isagoo raadinaya xilka ra'iisul wasaarenimo Dani ayaa la rumaysan yahay inuu taageeri doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay aad isugu dhow yihiin madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa dad badan ay rumaysan yihiin inuu guuleysan karo hadduu ka soo gudbo wareega koowaad isla markaana noqdo mid ka mid ah saddexda musharax ee ugu codadka badan si kastaba Shariif ayaa laga cabsi qabaa inuu galo kaalinta afraad taasoo ku qasbi karta inuu haro madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu wareega koowaad galo kaalinta koowaad ama labaad waxaana la saadaalinayaa inuu ka adkaan karo musharaxiinta kale ee dhan marka laga reebo Shariif oo la sheegay in haddii ay isku haraan uu halis wajihi karo xaaladahan ayaa ah mid saacadda ka dambaysa sii yeelanaysa xamaasad gaar ah waxaana mar kasta abuurmaya isbahaysiyo cusub taasoo xaaladda si degdeg ah isku bedeli karta